bulshadu waxa uu nabigu ku tilmaamay dad doon wada fuushan inay yihiin qaarna xagga sare fuuleen qaarna xagga hoose saaray kuwii xagga hoose saaraa ay markii dambe yiraahdeen war magan xagga saruur maxaynu biyo ugu daadaadinaa ama xagga ugu soconnaa maynu halkeena ma ka tolashano biyaha ka raadsan dabeetana nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam hadday gacanta ka qabtaanna waa wada liibaanayaan hadday ku sii daayaan oo yidhaahdaan xorriyadooda shakhsigaa bay leeyihiin ee meeshooda ka dhurtaanna doontu inay degaysa buu nabigu tilmaamay macnuu muxuu tilmaamaya bulshadu wadan wada degan ama magaalo wada degan ama dhul wada degan way isku xidhantay haddii inta xumaha samaynaysa inta wanaagga haysa ama madaxda ama maamulka ama hadday qaban waayaan ciqaabta timaada dadkoo dhan buu ku wada dhacaysaa ciqaabta timaada doontaa wada degtay ayuu noqonaysaa